ninka idin soo diray qaar badan oo idin soo diro anigu aan garanayo ilmahooda Muqdisho ay joogaan jaamacaday dhigtaan dugsiyo sare ay dhigtaan nolol fiican bay ku nool yihiin ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan waxaan leeyahay baraaruga haddeer toobad keena. Halkani waa Dunida Media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan Dunida Media. Waxaan barnaamijkeena ku falanqayn doonaa ama aan kaga hadli doonaa wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliya Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ka hadlay sidii Al-Shabaab loola dagaalami lahaa. Qodobkaas ayaan kaga hadli doonaa ama aan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena. Haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furto si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino una sii share garay saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo waliba guud ahaan caalamka. Mahadsan. Wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa si kulul uga hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho weerarada kale oo ay ka geystaan Soomaaliya. Mukhtaar Robow ay garab fadhiyeen qaar ka mid ah culimada Muqdisho ayaa sheegay inay tahay wax aad looga xumaado dhibaatada ay guud ahaan dalka ka geysanayaan ururka Al-Shabaab isagoo sheegay inaysan ahayn wax diin ah. Waxa uu hadalkiisu intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed oo kaashanaya dowladda culimada ay wajihi doonaan Al-Shabaab isla markaana taasi ay keeni doonto in Al-Shabaab fursad u waayaan weerarada ay geysanayaan. Waxaan leeyahay dhalinyarada shabaabka ah kuwa aan aqaan ee idin soo qalday ilmahooda iskuul iyo jaamacada ay xamar ka dhigtaan ama adduunka kale nolol fiican waa kuwa ku jiraan yeysan been idin sheegin ayuu yiri Mukhtaar Robow oo ka khudbadeynayay. Sidoo kale wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta wuxuu sheegay in qof walba laga rabo inuu difaaco naftiisa iyo maalkiisa sidoo kalena loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab sida ay ugu midoobeen dadka deegaanka Hiiraan iyo Galmudug oo la dagaalamaya. Hadalka wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa ku soo aadaya xilli Muqdisho uu ka dhacay weerar ay geysteen Al-Shabaab kaasi oo in la soo afjaray ay dowladda ku qaadatay in ka badan 30 saacadood. Tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmareynaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawaneyseen Dunida Media. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay channelka subscribe saar sidoo kale furo gambaleelka si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. Like garee muuqaalka una sii share garee saaxiibada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda Soomaaliya iyo waliba guud ahaan caalamka. Mahadsan.